Maalin maalmaha ka mid ah, wiil yar ayaa wax uu aaday iskuulkiisa, waxaana u yimid intii iskuulka uu joogay mid ka mid ah waardiyaasha. Waxa uuna dhahay, hooyada ayaa waxa ay ku keentay biyo cabitaan ah. Kadib markii uu iskuulka ka soo laabtay, waxa uu dareemay xanuun. Hooyadiina waxa ay u kaxaysay isbitaalka. Markii uu dhakhtarkana baaritaan badan ku sameeyay, waxa uu sheegay wiilkani in uu sumoobay. Suntaasna waxay ka timid ayuu yiri cabitaan ama cunto. Wiilkii markii la weydiiyay waxa uu dhahay, waardiyaha iskuulka ayaa maanta waxa uu siiyay cabitaan. Kadib booliisku waxay soo qabteen waardiyihii, waxa uuna ku jawaabay, hooyadii ayaa ii soo dhiibtay cabitaanka maanta aan siiyay wiilkaasi. Intaas kadib booliisku waxay bilaabeen kaamirada iskuulka inay baaraan, waxayna ogaadeen waardiyaha in uu run sheegayo. Balse wax la yaabka leh ayaa waxay ahayd naagta cabitaanka keentay hooyadii maynan ahayn. Waxay noqotay naag kale. Markii la soo qabtayna dambigeeda way qiratay, waxayna dhahday, wiilkani mar walba wuxuu ka kormari jiray wiilkayga. Sida awgeed ayaan rabay inaan u dilo. Hadduu channel subscribe ku ahayn, subscribe dhaho, saad ula socoto wax walbaan soo dhigno. Mahadsanid.